Brunswick Road Coalition Center waa garaash lagu sameeyo gawaarida shilka gasha ama lagu dhaco iyo kuwa cilada dhanka makaanikada qaba. Brunswick Road Coalition Center 360 Brunswick Road, Brunswick. Telefoonkuna waa 938777791. Brunswick Road Coalition Center waxaa kaloo ka caawinaysaa caymiska tagaasida. Brunswick Road Coalition Center waxay ka dhaafaysaa lacagta accesska loo yaqaano ee dadka laga qaado marka gaarigooda shilka soo galay ay shirkadda caymisku u samayso. Brunswick Road Coalition Center waxaa kuugu diyaara shaqaale loo carbiyay samaynta gawaarida iyo waliba dhanka soo dhaweynta macaamiisha. Waxaa goobta kuugu diyaara Ibrahim iyo Daniel iyo tiimkooda. Waa Brunswick Road Coalition Center 360 Brunswick Road, Brunswick. Telefoonkuna waa 938777791. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجك أيامها هي أستراليا ومركز لنكوية مريم مقالة ملبن. برنامج كان يانو كسو قادنا دعوين كي ودنبيي دالكا صوماليا يوليبا عالمكا انتي سكالي. waxaana barnaamijka nagala qayb gala aqoon-yahano iyo xubno ka tirsan jaaliyadda dalkan Australia. Magacaygu waa Xasan Jaamac. Barnaamijkana dabcan waxaad ka daawan doontaan ama ka daawanaysaan telefishinka Somali Cable. waxaan u mahadcelinaynaa ganacsatada inoo sahashay barnaamijkan inaanu noo suuragelisay barnaamijkan inuu qabsoomo. maanta waxaan ugu martiyaa Dr. Maxamed Cabaas Cumar oo hore u soo noqday wasiirul dawlaha madaxtooyada iyo xiriirka caalamiga ee maamul goboleedka Puntland kana tirsan jaaliyadda magaalada degan waa magaalada Melbourne. Dr. Cabaas ku soo dhawaad barnaamijka. waad mahadsantahay. waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka dabcan maanta isniina waxaa ka dhacaya Somaliland doorasho lagu kala dooranayo saddex musharax oo madaxweynenimo u sharaxan. aragtidaada guud ahaan doorashada Somaliland. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore waad mahadsantahay Xasan. marka labaadna TV-ga Somali Cable iyagana waan uga mahadcelinaynaa fursadan. ugu horeyn waxaan halkan hambalyo uga direynaa dadka Soomaaliyeed ee deegaanada degan sababtoo ah inay gaaraan doorasho intay xisbiya tartamaan dadweynaha la yiraahdo dadweynaha codeeya oo ninka rabtaan doorta waa talaabo ay hore u qaadeen oo aan dhihi karayno hadii si daacad loo hadlo deegaanada kale Soomaaliya way ka horeeyaan hadda. marka horta wanaag baan u rajaynaynaa halka inuu ka soo baxo. arinta ugu muhiimsan waxa weeye Xasan dadka codeynaya doorasho markay dhacayso siyaasiyiinta lama dhageysto. waxa muhiim ah dadka codeynaya dadweynaha codeynaya maxay go'aanayaan maxay rabaan. marka waxay la tahay nimanka musharaxiinta ah saddex xisbiya tartamaya ninkii guuleysta dhib ma laha qof unbaa guuleysan lahaa laakiin dadweynaha halka ku nool waxa muhiim u ah qofka soo baxay muhiim uma aha. waa dad walaal ah waa rag la yaqaano oo dadweynuhu aad u yaqaanaan waxa weeye dhibaatada dalka ka jirta maxay ka qaban karaan. marka waxa ila muuqata laba arrimood baa ugu muhiimsan. mid waa xagga nolosha ninka siyaasiga cusub ee hoggaanka Somaliland qaban doona nolosha hadda jirta wax ma ka bedeli doona. arrimahana waxa ka mid ah sicir bararka oo kale waxyaalaha dadweynuhu aad uga cabanayaan oo ay gaadhay in dalkii wax lagu kala iibsado dollar halkaana dadkii noloshooda hooseysay maaragtay aan u wanaagsanayn. marka nolosha adag iyo sicir bararka jira ninka hoggaanka qabanaya wax ma ka qabanaya taas waa mas'uuliyad weyn. mas'uuliyadda labaadna Xasan waxa weeye nabadgelyada hadda ka jirta inay maintain garan karo sidee hadda tahay iyo si ka fiican inuu u sii wada karo. marka waxaan filayaa labada arrimood baa lagu qiimeyn doonaa. marka anaga dad walaalaheena Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa natiijo fiican inay halka ka soo baxdo. marka qofka guuleysanaya muhiim ma aha ajandaha meesha wax weeye nabadgelyada shaqo abuurista dhalinyarada badan oo tahriibka aadaysa shaqo ma u samayn karaan arrimahaas ugu muhiimsan oo hor yaala ninka xafiiska qaban doona. waa gartaa mahadsan haddaan u noqono dhanka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho iyo dawladda federaalka qodbo u dhawaan jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka waxaad moodaa inuu aad u canaananayo ama u dhaliilanayo dad uu ku tilmaamay waa mucaarid joogta oo dawlad walba oo dhalata ku mucaarada oo aan ahayn dad dhaliilaya hadba dawladda qaladaadka ay gasheeba sida hadalka u dhigay dad doonaya inaysan dawladnimada ka hana qaadin dalka Soomaaliya. khudbadaas madaxweynaha maxaa kaaga dhacay ma ku saxsan yahay mise dhaliilaha loo soo jeedinayo as dawlad ahaan ku diidan yahay. labadaba way noqon kartaa. mid xil baan hayaa ummad baan madaxweyne u ahay yaan lay dhaleecaynin taas suurtagal ma aha. sideedaba marka aad xukunka haysid mucaaradku dhalanaya markaba laakiin madaxweynaha iyo dawladda xilka haysa ayay ku xirantahay marba sida uu maaragtay arinta u meengarayo. waxaan u maleynayaa hadalkiisu wuxuu ku dhacay dadka siyaasiyiinta ah laakiin waxa muhiim ah madaxweynuhu
fursadii la siiyey iyo taageeradii faraha badnayd oo siyaasi Soomaaliyeed muddooyinkii u dambeysay aanu helin taa inuu ka faa'iideystaa la rabay marka taan waxaan u arkaa gabaabsi badan oo xaggiisa ka yimid inay tahay sababtoo ah ninka mucaaradka waxa uu ka faa'iideysan karaa kaliya marba chance-kaad adigu siisid marka dawladda hankii loo qabay iyo qaabka ay u dhaqantay baa aad u kala fogaaday waxaa tusaale ahaan ka mid ah arrintii Soomaaliya gilgishay oo dhan oo ninkii muwaadinka Soomaaliyeed ee la dhiibay qalbi dhagax oo kale waxaa ka mid ah arrintii maamul goboleedyada ay dawladdu aad u faragelisay arrimo badan waxaa ka mid ahaa dawlado badan oo dariska oo markii hore campaign-ka lagu galay arrin wadaniyadeed oo taageero badan lagu helay kadibna madaxweynuhu intuu Addis Ababa tagay ciidamo badan loo keenay marka ninka mucaaradka in la dhaliilo ma aha mucaaradku wuxuu ka faa'iideysanayaa marba chance-ka aad bixiso marka waxaan u arkaa madaxweynaha waa la dhaliici karaa laakiin isagu waa in uu arrimihii dadweynuhu u doorteen inuu ka soo baxo taasaa muhiim ah waa gartay laakiin political science ama culumta siyaasadda aad baratay mucaaradka caalamka sida lagu yaqaan hadda dalkan Australia oo kale wax kastoo dawladda ay ku dhaliilayaan targetku ama cidda loola jeedo waa shacabka oo la isla yahay berita doorasho la aadi doonaayo markaas codkii hayna siiyeen Soomaaliya xaaladeedu waa ka duwan Soomaaliya marka mucaaradka marka qaar waxa loo qaadan karaa wixii meesha yaalay dumiya iyadoo aan la ogeyn cidda soo bixi doonta sax su'aasha hadda saad u dhigtayna sidii hore waa ka duwan tahay sida haddii loo fiiriyo madaxweynuhu waa sax hadalkiisa waxba ka jira runtii waa nasiib daro dadka mucaaradka ah dadweynaha Soomaaliyeed mucaaradeen maaha laakiin waa siyaasiyiinta dadka siyaasiyiinta ee Soomaalida ee marba nidaamka meesha jira mucaaradka ku ah ma aha waxa ay ka gadoodsan yihiin ma aha wax ay ka gadoodsan yihiin khaladaad ay dawladdu ku dhacayso waa ninkan kursiga inay weedaariyaan marka haddii hadda aad fiiriso dadka mucaaradsan farmaajo dadweynaha waxyaalaha ay ku mucaaradeen madaxweynaha way ku saxsan yihiin arrintii ninka la dhiibay arrimo badan oo kale laakiin siyaasiyiinta madaxweynaha mucaaradka ku ah si u badan yihiin waa dana siyaasadeed waa nin doorashadii looga adkaaday iyo nin wuxuu meesha ka rabay ka waayay oo marka dantiisa u socda ee danta guud ee dalka aan rajo badan ka qabin marka dhinaca haddii loo dhigo madaxweynuhu aad buu ugu saxsan yahay inay jiraan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo wixii la raba inay dumiyaan wixii la dhoobay taa madaxweynuhu aad buu ugu saxsan yahay waana dhaqanka runtii inta badan mucaaradiinta Soomaalida waa gartay tan kale arrinta ayaaman ugu weyneed waxa ay dabcan dhacdadii sooba kadib dawladdu waxay iclaamisay dagaalka dhana al-shabaab dabcan dagaalkaas amisom ciidamo badan dalka ka joogaan bay isleedahay oo inay ka caawin karaan madaxweynuhu wuxuu u safray Djibouti iyo Uganda iyo Ethiopia dabcan ciidamo dheeraad u weydiistay haddana waxaa soo baxday amisom inay leedahay 1,000 askari baan u dhimaynaa December tamba marka labadaas ay isu qaban karaan iyadoo dagaal iclaamiyo dawladda ay leedahay dagaal baan ku qaadanaa al-shabaab haddana amisom ay leedahay ciidamada dhimaynaa waa su'aal aad muhiim ah runtiina waa arrin iska hor imanaysa waana waxyaalaha runtii siyaasadda Soomaaliya jahwareerka ku riday laakiin xasan waxaan rabaa intaanan jawaabta dhabta u gelin arrinta amisom saad ogtahay 9 wixii ka dambeeyay dawladda ugu awoodda badan adduunka Mareykanka madaxweynihii hore Bush kii hore waa kii soo saaray nidaamkii New World Order ama النظام العالمي الجديد mareykanku berigii uu Soomaaliya ciidanka u soo diray wuu ku fashilmay sidaa darteed danaha dawladda Mareykanku ay ka leedahay gobolka bariga Afrika waxaa fuliya dawlado u qabanaya hawshii marka meesha ciidamo Mareykan sidii berigii Restore Hope oo kale loo soo diray Mareykanku hadda ma rabo inuu ciidamo keeno Soomaaliya laakiin dawladaha dariska Soomaaliya la ah oo Ethiopia ugu horeyso ayaa fulinaysa danihii Mareykanku uu ka lahaa regionka sidaa darteed arrinta ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la fahmo waxa weeye amisom mushaharaadkeeda yaa bixiya reer galbeedka bixiya haddii ay hadda ka dhabeeyaan marka in ciidamadii amisom Soomaaliya laga saaro taasi waa fariin ka timid beesha caalamka oo ah siyaasadii Mareykanka iyo midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya inay isbedeshay marka amisom xasan yayihiin Uganda Burundi waa wadamo markaad fiiriso per capita income-kooda dadweynaha Soomaaliyeed ee u qaxay dalalka ay u shaqeeyaan dadkooda marka nin isagiiba waxa la yiraahdaa faaqidu shay la yucdi qofan waxba hayn wax ma bixin karo marka Burundi iyo Uganda iyo Ethiopia iyo wadamo iyaguba ku nool mucaawamad reer galbeedka Soomaaliya wax badan kama qaban karaan ciidamadan
amisom waxay fulinayaan danaha dowladaha waaweyn ay regionka ka leeyihiin haddii ay la baxaan ninkii mushaharka siinayay baa la baxay marka runtii dhinaca Soomaaliya waxaa qalbi jab ku noqday farmaajo oo arinta ugu weyn lagu doortay inay ahayd dadweynaha Soomaaliyeed oo ka dareemay wadaniyad siyaasiyiintii kale laga waayay oo ah ciidamada qarankan aanu dhisaya wadamada dariska oo dana badan Soomaaliya kale mar rabno inaan anagu maaragtay amniga wadanka sugaan in intuu madaxweynihii tago uu yiraahdo intaas oo kumaan kun oo ciidana ha soo galaan dalkii taas ayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha qalbi jabka ku keenay shacbiga Soomaaliyeed marka ciidamada AMISOM joogitaankooda iyo bixidooda wuxuu ku xiran yahay marba ninka mushahaaroodka siinaya oo dawladaha reer galbeedka waa gartay laakiin dabcan campaign-ka waxa lagu galay iyo siyaasadda runta waxa la yiraahdaa inta badan waa kala duwantaa marka farmaajo laftiisa maantaas loo eegi karin waxa fiicnayd mabdii hore ee uu ku adkaa ee loo doortay in uu ka ku adkaysto dhibaato badan way ka hor iman lahayd laakiin inuu dhabar adeega fiican sababtoo ah wadamada dariska ciidamadooda iyo wadamada reer galbeedka inaad ogolaansho badan ka hesho waxa ka muhiimsan shacbiga Soomaaliyeed ee adigu maamulayso kuwaas ka muhiimsan marka runtii waxa la rabay sida qayaxan ee uu hadda u soo dhigay banaanka in wadamadii darisku ay ciidamo ku soo guraan Soomaaliya sidaas ka bedelan oo مثلا ciidamo African Union ay keeneen ama dawladaha Carabta ama dawladaha OIC-da si kale inuu farsameeyay ahayd marka balanqaadkii uu dadka u galay ayuu ka baxay madaxweynuhu arintaas runtiina waa markasta oo ciidamo ajnabi Soomaaliya sii joogan waa markasta oo ay caqabad ku noqdaan in la dhiso ciidan qaran oo Soomaaliya ay leedahay waa gartay dabcan dhawaan waxaa soo baxay khilaaf u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka taasoo ka dambeysay khilaafka khaliijka oo soo saameeyay shir baa lagu qabtay magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu warmartiyeed baa laga soo saaray waxaa looga hadlay arrimaha siyaasadda amniga federalismka iyo doorashada 2020 dastuurka laakiin laguma soo qaadan arrintii la isku qabtay ahayd khilaafka khaliijka dhinaca laga raacayo maxaa kaaga baxay warmartiyeedkaas iyo arrintii la isku haysto laga hadlay runtii waa nasiib daro sababtoo ah markaad fiiriso qodobadii ka soo baxay kulankii muddada dheer socday waxay ka hadleen arrimaha siyaasadda amniga waxay dhaheen halala dagaalamo argagixisada hadda warka awalba war la qabaa xiisama leh shabaab halala dagaalamo ayaa go'aamadii ka soo baxay ma aha wax mas'uuliyiin ay dadweynaha u sheegaan hadda markii hore dagaalku waa socday nimankaas inay cadow yihiin dalkii iyo diintii iyo dadkiiba xasuuqay waa la ogyahay doorashooyinka 2020 hala gaaro hal cod iyo arrimahaas ay kaga hadleen qodobka siyaasadda markaad fiiriso xasan waxyaalaha kaga hadleen waxa kamid ah xasilooni siyaasadeed buu dalku u baahan yahay hala isu dulqaato kalsooni hala kala helo yaan la kala shakiin marka runtii natiijooyinku waxay ahayd arrin uun labada dhinacba dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay afgobaadsi ku samaysanayeen si la dhaho uun warbal uun meesha aan wax ka soo saarno si aan loo dhihin way ku kala kaceen laakiin arrintii dhabta ahayd ee la isku hayay lagama hadal maxay ahayn arrimahaas tusaale ahaan waxay ahayd haddii aynu soo qaadano waxyaalaha ay ka biyadiideen dowlad goboleedyadu waxaa ka mid ahaa safaaradaha la magacaabayo مثلا dowladda dhaxa iskale laakiin waxyaalaha ay ka biyadiideen waxaa ka mid ahaa kulankii labaad ee madaxweynuhu ku tagay Sacuudiga $50 milyan ayaa sida warbaahintu sheegtay Sacuudiga ayaa loo soo balan qaaday 50 milyan magaca Soomaaliyeed baa lagu soo qaaday maamul goboleedyadii wax ma laga gaarsiiyay tababarka iyo scholarship-yada iyo arrimaha ay dowladda dhexe gacanta ku hayso maamul goboleedyada wax ma la geeyaa arrimahaas ay iyagu dooda ka qabeen oo ah anagu dowladii federaalka nahay oo dowladda dhexe qayb ka ah in dowladdiina wayna dhinac maraysaa dhinaca madaxweynaha iyo federaalkuna waxay lahaayeen in maamul goboleedyadii in dowladihii banaanka aadayaan heshiisay soo galayaan dastuurka markaad fiirisana arrintaas wuu ka hor imanaya oo in galmudug ama Puntland ama Jubbaland intay ka dhoofaan halka qodobka ay dowladaha shisheeye kala hadlayaan uu yahay qodob arrimo dibadeed ah
haddii maalan arrimo ganacsi uu yahay oo kale arrimo badan baa jira oo ay dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ay dowladaha kale kala hadli karaan ganacsigoo kale laakiin arrin siyaasadeed in oo arrimaha dibadda la xidhiidha dowladda dhexa iskale marka dowladduna taasay ku doosay arrintii dhabta ahayd ee laysku hayay oo ah dowlad goboleedyada oo la saftay imaaraadka sacuudiga iyo masar iyo dowladda dhexe oo la safatay qatar iyo turkiga oo saa loo kala jabay arrintaas ahayd arrinta shacbiga soomaaliyeed ay rabeen in meel laisla dhigo arrintiina go-aan lagama soo gaarin lagamana wada hadal waa gartay isla arrintaas guud ahaan see u aragtaa in hadda aanu noqonay sida muuqata dagaal waxaa loo yaqaano proxy war oo u dhexeeya dalal bariga dhexe iyo reer galbeed iyo ruush iyo iiraan iyo adduunyo guud ahaan siyaasiyiinta soomaalidu sidee uga dabaalan karaan proxy warkaas aad moodid geeska africa gaar ahaan soomaaliya hadda waa soo gashay horta adduunkii waad ogtahay xasan intii fikradda globalizationku ay bilaabantay alcawlama adduunkii wuxuu noqday gurubaysi marka way adag tahay dowladihii waaweynaa ayaan keligood noolaan karaynin marka soomaaliya oo burburtay oo wadankii maaragtay aad ogtahay xaaladiisa keligii ma taagnaan karo laakiin soomaalida waxay ku mahmahdaa ama buur ahaw ama buur ku tiirsanow soomaaliya way u baahan tahay dad garab u noqda laakiin soomaalida waxay tidhaahdaa waxaa kaloo lagu mahmaahaa masaakiintu jidkay ku coloobaan war dad iyagiiba gacanyarayaal ah dad iyagiiba dowlado kale gacanyarayaal u ah oo dilaaliin ah oo iyaga lagu shaqaysto oo dowladaha waaweyn gacanyarayaal u ah in loo kala tartamo taasaa waxoogaa dhib ah anu waxaan talahaan soo jeedin lahaa dowladaha waaweyn oo hadda shiinahoo kale ama ruushkaoo kale dowladda dhexe hadday garab rabto iyo meelay ku tirsanaato dowladda ruushka shiinaha dowlado kale waxaa jira hadda saad ogtahay urur samaysta oo BRICS la dhaho Brazil, Russia, India, China and South Africa BRICS population ahaan boqolkiiba 60 weeye adduunka intaa marka la isku daro adduunka global economy-na boqolkiiba 45 meelahaas ay controlaan marka BRICS oo kale haddaad ku tiirsanaato way adagtahay in lagu gilgilo oo hadda waxaa tahay buur ahaw ama buur ku tiirsanow laakiin imaaraadkii iyo dowlado yaryar oo iyaguba markii horeba dad kale u shaqaynayay kuwii inaad usii shaqayso Soomaaliya xataa masaakiintu jidkay ku culubaan dhibaatadu way aragtay in laga baxo ra'yi ahaan ani waxa ila quman dowladda sida taacadda Soomaaliya hadda ugu shaqaynaysa oo dana way leeyihiin laakiin kuwa kale marka la barbar dhiga ka fiican sida aniga ra'yi ahaan ila muuqato waa dowladda Turkiga deegaan ahaan moodagno isku region kuma naalno wax badan oo suspicion keeni kara ma jiro iyaga laakiin dowladahan kale oo imaaraadka sacuudiga arrimo badan baa jira oo u badan tahay inay ka shaqaynayaan waxyaalo badan oo danaha Soomaaliya ku jirin marka ama buur ahaw ama buur ku tiirsano waa gartay isla nidaamka siyaasadda Soomaalida hadda waxaad moodaa khudbadii madaxweynaha ku weydiiyay siyaasiyiinta uu dhaliilay qaarkood inay ku jiraan baarlamaanka oo ay yihiin xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ama aqalka sare doorka baarlamaanka maadaama hadda aqal sare cusub la dhisay doorkooda haddii dowladda la toosin lahaa haddii sharci la samayn lahaa muxuu noqonayaa laftigooda waxaad moodaa xildhibaanadii qolan inay yihiin qolo dowladda mar walba taageersan waxay doontaba ku taageersan iyo kuwa mucaarada oo dowladda timaadaba hadday rabaan kasoo horjeeda arrinta meeshay arrintu ka khaldan tahay xasan waxa weeye baarlamaanka af Soomaaliya waxaa lagu dhahaa golaha shacabka soo maaha yani dadweynihii oo dhan dowladii lama hadli karaan marka dad baa la soo xuli dadweynaha u matala dowladda oo af Ingiriiskana waa la House of Representatives soo maahayn waxaa la rabay baarlamaanku doodoodu inay ku saleysnaato deegaanada ay ka kala yimaadeen laakiin meeshii ay shacbiga Soomaaliyeed ka matali lahaayeen xildhibaanadu waxay kala matalaan siyaasiyiinta taas way markaa ta keenaysa awoodii iyo shaqadii baarlamaanku in ay waxba soo bixi weydo haddii baarlamaanka Soomaalidu uu ka turjumi lahaa dadweynuhu waxay go'aanayaan ama dowladda ayaa hore u socon lahayd ama kuwa mucaaradka ayaa waxa noqon lahaa laakiin siyaasiyiintii meesha isku hayay ayaa la kala sabtay nasiib daro marka baarlamaanku waa siyaasiyiinta mucaarad ama dowladda hay kuwaas la kala safeyn dadweynaha waxa ay go'aanayaan kama turjumaan waa gartay waxa kale oo soo baxday dhawaan shir la sheegay inuu ka dhici doono Nairobi bilaha u horeeyay sanadka soo socda
oo looga hadlayo khayraadka batroolka iyo gaaska Soomaaliya. Wasiirka batroolka iyo khayraadka Soomaaliya wuxuu yiraan waxba kama ogi. Website-ka ururka ama hay'adda qabanqaabinaysa shirkaas waxay leeyihiin prime ministerku dadka ka hadli doono ka mid yahay, wasiirka khayraadku dadka ka hadli doono ka mid yahay. Buuq badan iyo muran baa arrintaa ka dhashay, sidee u aragtaa? horta waa fawdada Soomaaliya ka jirta runtii. arrintaa shirkadda waxaa la yiraahdaa International Research Network IRN, fadhigeedu waa dalka Ingiriiska. shaqadoodu waxay tahay shirarka ayay waa event organizer oo kale. shirarka waliba 6 sano ugu dambeysay meelaha ayay bilaabeen inay shirarka waxyaalaha khayraadka dabiiciga ay isu keenaan, forumyada qabtaan, in shirarka maalgelinta qabtaan. horta waa urur saasa. su-aashu waxa weeye wadan dhan oo Soomaaliya la dhaho oo hadda aanu dhulkaba ha yaalay laakiin baarlamaan laho dawlad leh, sidee baa urur meelahaas intuu Nairobi shir iskaga qabsado statement u soo saartay ay leeyihiin Soomaaliya khayraadka ku jiro oo dhan gaar ahaan batroolka iyo macdanta shir ku saabsan baan qor ayaanu qabanaynaa. taas waxay ku tusaysaa ama ay daliil u tahay taladii Soomaaliya inaanay Soomaalida faraha ugu jirin. arrinta xasan la yaab kale waxa weeye hadda arbacadii tagtay wasiirka Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka batroolka, arrinta markuu ka war helay ayuu qoraal dheer soo saaray oo uu u diray hay'adda qofka madaxda ka ah oo leeyahay shirka Nairobi aad ku qabanaysaan 19 ilaa 21 bisha March ee soo socota, anagu waxba kuma ogin haddaanu nahay dawladda Soomaaliyeed. isniintii 6 bisha November buu waraaqda wasiirku soo saaray warkuu ka war helay. 8 bisha oo arbacadii hadda aynu soo dhaafnayd bishan lagu jiray November 2017 hay-addiiba iyaduna qoraal ka soo daba saartay wasiirka. waxay dhaheen shirkaas wuu dhacayaa, Nairobi ayuu ka dhacayaa, waxaa looga hadlayaa batroolka iyo macdanta Soomaaliya, annagaa qabanayna. isla dawladda Soomaaliyeed ayaanu ogolaansho ka haysanaa. saasay ku qoreen website-ka. endorsement ayaanu haysanaa baa endorsement. ogolaanshan ka haysanaa dawladda Soomaaliya. waraaqdaana 19 September ee la soo dhaafay ayay dawladda Soomaaliya noo ogolaatay, laakiin ma aysan sheegin qofka uu ogolaaday. waa kale waa wasiirada dawladda mid kamid ah. marka hay'ad baa ku qabsanaysa Nairobi shir khayraadka Soomaaliya looga hadlayo, wasiirkiina uu diido wuxuu waxba kama ogi. wasiirkuna wuxuu ku jiraa magacyada dadka shirka hay'addu ay sheegtay inuu uga hadlayo. arrinta markaad isku soo xooriso waxay ku tusaysaa taladii Soomaalida in aanay dadkii iyo dawladdii gacanta ugu jirin waxyaalo fara badan runtii nasiib darro. waa gartay. wadankan Australia hadda aynu degannahay waxaa ka socda dood ballaaran oo ku aadan xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo aqalka hoose Australia oo la leeyahay laba dhalasho leeyihiin. dastuurka wadankan wuxuu qorayaa in haddii laba dhalasho aad leedahay aadan baarlamaanka dalkan geli karin. Soomaaliya dabcan madaxda ugu sarreysa wadanka oo dhan baasaboor ajnabi ay leeyihiin. shuruucdan oo kale Australia sababaha ay u nisbaynayso ay leedahay qof dhalasho labaad haysta ma qaban karo, maxay tahay khatarta Soomaaliya ku noqon kartaa waxyaalahaas kale wadanka oo dhan qurbo joog baa dalkii oo dhan haysta? arrintan horta Australia hadda gilgishay saad sheegtay Xasan, waxa weeye dastuurka Australia federaalka ah section 44 qodobka 44 ayaa wuxuu qorayaa baarlamaanka Australia ee federaalka ma soo geli karo qof aan jinsiyad Australia mid kale haysta. marka macnaheedu waxa weeye xitaa hadduu aabaha wadan kale ahaa oo maaragtay isir ahaan aad u haysatid waa inaad waraaq qortaa. anu waxaan aaminsanahay ila tahay in arrintaas arrin sax tahay, sababtoo ah qofku markuu laba jinsiyadood wato waxaa su'aali ka imanaysaa hogaansanaantii iyo loyalty-ga xaguu yaala. innaga haddaynu markaa soo qaadano kolay dastuurkeena kuma qorna, laakiin dalkii markaa tagtoon ana muddo 3 sano ka soo shaqaynayay dood weyn baa u dhaxaysa dadkii dalka ku haray iyo dadka qurbo joogta. qolo walbana dood bay qabtaa. marka madaxweynuhu hadda baasaboor Mareykan u wataa. ra'iisul wasaaruhu baasaboor Norwegian u wataa. afhayeenka baarlamaanka wuxuu wataa baasaboor Norwegian ah. marka dano dawladda Norway ka leedahay Soomaaliya hadday soo gasho ra'iisul wasaarihii afhayeenka baarlamaanka interestiga halkee buu imanaya
gaar ahaan Norway arrimaha shidaalka iyo Soomaaliya waxay ka leedahay dana fara badan. Mareykanku waad ogtahay siduu faraha ugula jiro arrimaha Soomaaliya marka madaxweynuhu markuu la kulmayo American ahaan buu kula kulmay waftiga Mareykanka mise madaxweynihii marka aan waxaan dhihi lahaa sida Australia u qeexday arrinka in Soomaaliya dastuurkeeda lagu daro in hoggaanka sare dadka qabanaya hadday hore u lahaayeen inay ka tanaasulaan inta ay xilka hayaan oo kale marka runtaas arrintaas waa arrin warwar aad u badan maaragtay keenaysa. waa gartay sidaa sheegtay 3 sanaad waddanka soo shaqeynaysay gobolba ha noqotay culum siyaasadeed baratay nin aqoon-yahan tahay Soomaaliya xasiloonideeda 30 sano u dambeysay maxaad isleedahay haddaad 1 iyo 2 iyo 3 arrimaha hortaagna oo haystay oo waddanku u xasilila ay u degilayeen maxaad isleedahay weeyeen? bismillaahir rahmaanir rahiim horta Soomaaliya dhibaatada midna waa mid dadka ka soo baxaysa mar walba oo dadka wata midna waa mid waxba sababay مثلا calanka markii la qaatay dawladihii dalka soo maamulay khaladaad badan oo arrin mar hore khaldantay natiijadeedu gadaal way ka soo bixi karaysaa laakiin waa wax la joojin karo anigu waxaan isleeyahay arrinta Soomaaliya ugu muhiimsan oo dhibku u dagilaya waxa weeye xagga hoggaanka saad ka warhaysa Xasan maadaama Soomaaliduna dad ay muslimiin aanu nahay hoggaanka waxa loo dhiibtaa sifooyin bay leeyihiin dadka hoggaanka loo dhiibanayo nasiib daro Soomaaliya waxaan is dhihi karaa waa waddanka kaliya oo qof dambiile ah oo dalka kharibay oo warlord ahaa oo dad xabsiga in lagu hayo intuu fagaaraha iskeeno uu leeyahay dalkan hogaaminaya arrintaas marka qofka maxaa ku kalifaysa qof is-og inuu dambiile yahay wuxuu og yahay dad badan oo shacbi weyne ah oo waxa ku raacsan inuu helayo arrinkan waxa sabab u ah arrinkan qabyaalada in qabiilku dhima laha oo maaragtay yaa ayuha الناس inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila litacaarafu marka qabiilka Ilaahay baa abuuray in dadku iskala gartaan oo la isku garto laakiin qabyaaladeyntii oo ah de Soomaaliya uma baahna in loo sharxo qabyaaladu waxa ay tahay marka Soomaaliya haday heli lahayd hoggaan fiican runtii wax badan baa hagaagi lahaa marka arrimo badan baa jira qayb waxa ka ah Soomaaliya meesha ay ku taalo waa dad diinta ku fiican diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo waa dad aad u fiican oo yaani magac ahaan aanu haysanay ku dhimanaya diinta Soomaalidu waxay dhaqan u leedahay qad iyo inaanay ogolayn in madaxa laga garaaco waxaana daliil u ah Afrika markii lagu soo duulay dadka dhan waa iswada dhiibeen Soomaalidu way dagaalantay waqtigii Axmed Guri ha ahaado ama waqtigii Daraawiishta ama SYL marka Soomaalidu dad badana u hoggaansan maaha in madaxa laga garaaco Ilaahay wuxuu ku abuuray dhul aad istiraatiiji ah oo khayraadka ku jira badda iyo bariga labadaba uu badan yahay taasina waxay keentay damac fara badan oo dadka cadawga ah ay meesha isha ku hayaan Soomaaliya sida diraasaad badan la sameeyay Xasan waxyaalaha badan oo ay u degilaadahay qayb weyn waxa ka ah faragelinta shisheeye oo nin walba uu soo socdo dhulka barwaaqada ah meesha caalamiga cajiibka ku yaala dad tira yar ay ku nool yihiin oo wada muslimiin ah marka dhibaatada midna waa mid banaanka ka socota midna waxa la dhigi karaa waa mid Soomaalida ka timid tan Soomaalida waa la haba ta banaanka waa laga hortagi karaa hadii tan gudaha la saxo waa gartay tan u dambaysa Dr. Abbas aad mahadsan Mareykanka doorashooyinka dhacay asbuucan dabeeqadiisii ama bilowgiisii Soomaali badan baa ku soo baxday golo deegaan noqoto meesha doonta Australia Soomaalidu waxay waddaa siyaasadda inay ka maqan yihiin maxaad leedahay sababtooda والله إن شاء الله كل وفرضه وترتمان ولا كلا بديل مركا Soomaali dii banaanka u qaxday waxa moodaa ama ay tahayba Soomaalidii North America inay ka horeyso Soomaalida kale hore la isu weydiiyay waxa qayb ka ah Soomaalidu intaanay burburin Soomaaliya intaanay burburin ka hor dad badan oo maaragtay aqoon-yahan ah gobolkaasi u badnaayeen markii la qaxayna waxaad dhihi kartaa dadkii cream of the society dadkii xaggi u badan yihiin taas marka waxay keenaysaa nin maalin maxaa Soomaaliya dhihi jiray nin maalin ka horguuray
waa weli waa ka horeeya ma ogtahay marka waxaan rajaynaynaa waa arrin aan aad ugu faraxsanahay Soomaalida marka Australia waxaan ku leeyahay aniga adiguna ay ka midna waxaan ku baraarujinahay hadee aynu walaalahan ku dayan oo aynu ka maaragtay ka qayb qaadano siyaasadda gudaha dhinaca markaad fiirisana tan Australia ila sahlan in Soomaalidu wax badan ay geli karayso oo numberka lagu joogo iyo maaragtay wadan aad u weyn marka aad baan u hambalyo ugu direynaa Soomaalida North America ama hada wasiirka Ahmed wasiirka immigration-ka Canada iyo kuwa hadda ku soo baxay konsulada Mareykanka runtii anaguna waa idinku soo daba jirnaa marka dhiirigelin bay u noqonaysaa Soomaalida Australia degan in kuwaas waxa ay gaadheen anaguna aan qaban karayno aad iyo aad Dr. Abbas aad iyo aad baa mahadsantahay waqtiga aad siisay aad baa mahadsantahay xasan barnaamijkii maantana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa nagala qayb galay Dr. Maxamed Abbas oo kamid ah aqoon-yahanada magaalada Melbourne degan barnaamijkii ayaamaha iyo Australia intaas inoo weegyahay waa anigoo Xasan Jaamac oo inala intaas iyo nabadgelyo Brunswick Road Coalition Center waa garaash lagu sameeyo gawaarida shilka gasha ama lagu dhaco iyo kuwa cilada dhanka makaanikada qaba Brunswick Road Coalition Center 360 Brunswick Road Brunswick telefoonkuna waa 9387779 Brunswick Road Coalition Center waxaa kaloo ka caawinaysa caymiska tagaasida Brunswick Road Coalition Center waxay ka dhaafaysaa lacagta accesska loo yaqaano ee dadka laga qaada marka gaarigooda shilka soo galay ay shirkadda caymisku u samayso Brunswick Road Coalition Center waxaa kuugu diyaara shaqaale loo carbiyay samaynta gawaarida iyo waliba dhanka soo dhaweynta macaamiisha waxaa goobta kuugu diyaara Ibrahim iyo Daniel iyo tiimkooda waa Brunswick Road Coalition Center 360 Brunswick Road Brunswick telefoonkuna waa 9387779